ستيسة شيء من لقاها هو اللي جاي لهاي أنت سنية لا مركو رئيس مرتشرفك وزيرك وقامنيه يحلوا النظام هذه الرسول وينينا هكذا وايدين هالعلمنا سيدا بمهارة نوصل ويسير هي سيدا وقتي نقالك عن نص السير وعن كل نبي برنامج كان عوضنا ستيس الشيء بيلكا أفكار بقالو كان جزيرة الصومالية منصير وحال صوصات سلو زارد وصوصات هداية
salaysnayn taladii aan siin lahayn haddana wasiirkaan u dhiibi doonaa iyadoo qoraal ah iyo wafdigiintiisa kale baan siin doonaa markuu hadda shirkaa baxaan waxaanu qabanaynaa presidents waxay annaga nala tahay baan rabnaa inaanu sheegno maadaama hadda waqti badan uusan jirin waxaanu u soo koobaynaa kadib markaan aragnay waxyaabo badan oo maanta intuusa ummadda soomaali maan akhri karo qoraalku waa 3 page wey dad badan oo Soomaaliya dadku waa isku dareen waa isku dhow yihiin oo aan ku jirin ragga aan la tashanay oo rag iyo dumarba waxay halkaa ka soo bandhigeen oo inoo sheegeen in maanta aan loo Soomaali aysan diyaar u ahayn jinsiyadda ay ka hadasho waxaan arku haynaa dadkeena maxaa la dowladeena inaan u tirsanahay oo ay dhahdeen maxaa dhahaa shacabkaada kaa maqan ha la soo fashto taasi ku daydiyo waayo taasi ku maxsantahay dowladda tan kale waxaa waaye ilaahay waqti gole qayban lama joojiyo meesha aan taaganahay weligay my life isma dhahaynin one day ataa meel soo istaagta as jinsiyadaada la geli doonaa maxaa la dhahaa shaki annaga hadday waddanka fiicnaado iyo haddii uu xumaadado Soomaaliya iskale su-aasha carabeed ogaada midda xigta waxaa weeye aan raba faahfaahin anigu horta waqti xaadir anigu isnacsa waqti xaadir in la fulsho sharciga aan qodobkan ma qabo asbaabta aan u qabin oo ku soo socdo su-aasha waa hormarso sababta waxay mar israacsanayaan asbaabta aan u qabinna waa si soo socotay waqti xaadir federaalku waxaa jira sharcigan federaalka rules federaalkuna gobolada qaarkood waxay leeyihiin maba noo imaan karaan u fiirsa horta lagu maro federal awood ay gobolada qaar ku gaarto maba laha marka haddaysan lahayn hadda average everybody will do what he wants taasu la maro waddanka hadda intaas oo dada oo aan countergaraysnayn oo ajnabi ah ayaa joogta hadda joogta sidaa daraaddeed oo federal xataa aysan kontroolin oo ogeynaa joogta oo ajnabi ah waddanka waxaad joogta xamar agosto 20 aan ka imin agosto 20 baan ka imin city in the city aad jirta xamar city in the city dowladda aysan kontroolin sidaas daraaddeed ilaa aan ka baxayna xaaladaas ilaa awoodda federaalku meel walba ay gaarayso ilaa la kaligaraynayo waxa dadka aanaan ku jira aan kaligaraynayo ilaa borders ay xirmahayaan ma qabo sharcigaas in la fasho marka sidaa loo this lacks credibility this motion lacks credibility consensus based for me to don't go it's a good motion depth in the eyes malagad السلام عليكم aniga waxaa la yidhaahdaa cabdirsaaq duubiye waxaan ku noolahay magaalada toronto muddo 7 sannadood aad baan soo dhaweynaya martida sharaftada ee Soomaaliya nooga tagin su-aal baan weydiinaya su-aashaas haddii ay ka jawaabaan haddii ay ka jawaabi waayaan waxa barnaamijka ay wataan way la tegayaan waxaan ka codsanayaa qof kastoo Soomaaliya qolka jooga iska su-aashaydu waxay tahay waddanka Soomaaliya ee burbursan muddo 25 sannadood su-aashaydu waxay tahay dadka Soomaaliya aasaaseed ilaa raskambooy teesarayaal leeyihiin su-aasha wasiirka ayaa weydiinaya hadduu joogo wasiirkii arrimaha guduhu leeyahay wasiirka ayaa shaqadan hawl ku leh anugu qof kale ma rabo wasiirku waa inuu su-aashaas ka jawaabo waddan aan teesarayaal dadkiisu haysan sideebaa dad kale oo ajnabi ah loo siinayaa sidiisa anigu horta askariyad baan ahay waxaan ku dhaartay
dhahaa shanta geesaan ku dhaartay waxaan asaga ahayna wallayga laakiin mayoo goshin inaan heeso waa heesaay politikaadi kaale su-aashaydu waa heeskaygu waa su-aal su-aashaydu waa heeskaygu waa su-aal dhulkaygo presentation ka qayb qaadkiisa waxay ku qornay English Soomaalimada halkaas ka kulutay all right anu soo noqon marka what important ee halkan leedahay iyo sida arrintan waqtigeeda aan loo joogin adduunyada citizenship waxa lagu sameeyaa laba qaybood waa mid oo ah u dhalasho oo dhaxal lagu helo iyo mid ah process lagu helo labada caalamka wadamo kala duwan isticmaalo midda u dhalashada waa midda ilaa Soomaaliya laga helo tan process lagu helo cid ku samaysa malaha jacayl ay qabaan umadka international law waxaan halkan maqlay arrin qadan oo leeyahay international law ayaa wuxuu obligation laga dhigaa qofkii stateless ah inuu la siiyo jinsiyad haddii sidaas ahaan lahayd Palestinian oo dhan waa stateless Sacuudi Carabiga waxaa la siiyay marka qaanuunka arrin background waxaa ka shaqeeya immigration for the last 7 years internationally in Canada ma jirto immigration law sameeyo dan dadka kale loo sameeyaa wadan waliba wuxuu sameeyaa based on their national interest waxaan ahay ummad unique ah qofka Soomaaliga looma baahna Soomaaliyada la xaqiijiyo so arrintan ma aha dastuuri ma aha waa parliament act sababta waxaa la sameeyay hadda arrimaha noo shaqay waa run way jiraan waxaa la sameeyay 1962 dastuurka Soomaaliya waxaa la qoray 1961 markuu wuxuu yiri qaanuun kala shaqay doona muhiim ah in hadda aan ka hadalno dib ayaan u dhigan karnaa markii la helo strong Somali nation oo arrinta inta la sameeyo halka markii la sharxayo waxa uu su'aal Soomaali noqon kara Soomaali waxa noqon kara ninka isirkiisu Soomaaliga ayaa Soomaali ko isir baan ku salaynaa waxa kaloo Soomaali ah maxay haytoy qofka stateless isu walaalkay sheegay ninkii hadlaayay wuxuu ka hadlaayay conventions review conventions uu ka hadlaayay stateless conventions uu ka hadlaayay slavery ku darayna hada ina waa inta wax la convention ay leedahay slavery waxaan ka hadlaayay wax maanta Soomaaliya ay u taagan tahay inay wax ka qabato ma Soomaaliya priority-geedu waa amni in Soomaaliya ka dhigto Soomaaliya waxay u baahan tahay marka sharciga kan halka la sheegayo waqtigiisa in la sugo dood ma baahna waxaana dood ugu baahnayn
وحوي ملتريني وما أنت العقل وأجنبي العقل المشروع بين متقارن كان مشروع بالنقطة إن الدولة لك مشروع كسوقاتان ومركا أي سميان ملتريني أنا ما أنت العقل قال مركا وحلو بان يقول كون كحسن إن ولكن قرر ما يشمل إنسا رفيجي وسي شيء قضبة هذا نقوله كي اسم ونقنايا قضبة كله وقت يلي ديار منه قضبة صدحات محلوينها ما تجوا ومحلوينها صوم عارو جران ما بينكروا إنه يرادوا تطبع الجنسية ما الدولة تجوتها الدولة فوق القدرتي ما أنت الدولة فوق القدرتي اللي قالوا أيها لربا هي أيها لربا هي ما أنت الدولة فوق القدرته أيها لربا هي إن دعوا الجنسية meesha lagu soo qoray oo ah hal qodob aan anigu ka fahmay qofka Soomaali 7 sano jooga ama ray 8 sano ma noqon kara Soomaali ninkaan horta ma qaado waqtiga maanta Soomaali ama qaawinta cid kale ma qaado karta hada ma taas waxaan rabaa qodobka caaw ku faraxsanaan lahaa in koronto la keeno oo laga shaqeeyo oo muhiimka ah heshiis waa Soomaali waxay u safaraysaa colaadii dhacdaa gaajo kurida maskaxdana way ka abaartay caqligana way ka abaartay taasoo محمد أحمد جروعو leader of Somali community وحبدا وشقينا كشقينا immigration Canada إلا أن Somali بدل وهالكان تمين كويش بروسيسك حفيز كذا كشقينا وحنا مرة ورثنا سولوي وزير في مفتي كيسة وحنا وين سولوي اللي بارد الصومالية ونفطه وأوري especially كونجا أفريقيا من حبة كل عدد ولكن وصلنا أرجع كوفيش كنا مركا تاسو قدر كلام وحنا رواينا نشر إنه وحين نهاي civilization كنا صومالي ولغتنا language كنا heritage كنا وصومالي كان جوجو قلبيت كصومالي كان كنتي جوجو شد الصومالي تنقطه اسم بالنا هيسلو شيء عرفي اسم كان صومالي وحنا جبنا كيس أفريقيا عندنا 5000 years أنا وحنا عندي geologist anthropologist history تبع مقرر وحنا دقنا 5000 years كل كنا يدد كنا وابد كليه الدم كحري markii la fiiriyo ancestors ka haray oo luqad unique ku hadlaan dadka kale waa la baxay inagu ma ogolaanin marnana ma ogolaanin in foreign agenda lagu sameeyo inaan ka hadalno jinsiyad Soomaaliyeed waa nasiib daro wallahi oo billahi oo kala waa nasiib daro Uganda Sierra Leone Burundi Djibouti شيء وحنا نعمل قرى الصوماليين سير نقول السلحة إيش يا مخيل ودي وزير ده كان يمين سير يقول نقطة هلا بس أنا مسدح سنة إيه لو لبعتهم كل أوعيدا شو كل أوعيدا وقرأ وسكون سير لو وين كان وأشوف قالوا لي وحنا أنا كان أول لا حد تام كذي ما تعرف حقنا ما أقل أول كذي الملك موشي بعد كامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنسيته واحد very مهمة. مركينا جنسيته اللي ما تقرقرت جدينه. أنا وطن كامل. أنا هنا صومالي هاي. ده دير عدي كرمانت. بركة إن فايتام واي حمل كل لطي اسكت كل هاي. دير هذا أنت علو جيد وحليه وايدا ياه. مرك أنا جي صومالي ها. أمان تصير situation كويه. خلقين كجرا منشيدي وقلد واقمين ملي عديك حمرا كل شيء شيء قالوا لبعضنا تذكر على ممكن ولا لا يدهان وحلي بيت دوا مرك أني سلمني how come أمانك كل كلمة فينا بركة الله وروح لبنا أنت هنا وحال ولا حالك رجسيته تاس عنا الورطة
mahadsan yahay laakiin jinsiyadda soomaali gorgortan ma ku jirto haddaa bacgaynaysiinna idinkama yeerayno waa soo wada noqonaynaa annagu waxaynu nahay Soomaali dulka annaga iskale dhaxal baynu u leenahay gees ka gees raas caseer tulaas Kambodi ilaa iyo shanta Soomaaliyeed meesha degan tahay galbeedka Soomaaliya dhulkan North Eastern Territory la yiraahdo afka Soomaaliyeed dadku ku hadlo waa Soomaali wax la yiraahdo citizenship process baa la sameeyaa ma jiro mana ogolaanayno waxa ka soo socdo oo ay soo riixayaan dawladaha igad ay sameynayaan ajandaha globalization-ka ah ma ogolin waxaynu u sheegaynaa kana digaynaa madaxda Soomaaliyeed inay arrinka ka digtoonaadaan maxaa yeelay hadda waqtiga hadda aan raadinayno waxa waaye nation building baan ku jirnaa shuruuciyaha la sameynayno waxa how to govern Soomaaliya sida awgeed baana u joognaa annagu mana ogolin mana yeelayno in sharciga sindisaha oo nulugu mootaheena kaas waaye ma ogolin sharciga oo gadaal laga soo riixayo oo foreign agenda ah ma ogolin anagu taas baan sheegaynaa Soomaaliyeed u sheegaynaa inay ka digtoonaadaan arrintaasitood waa muhiim haddii aan arrintaasitood hadda aan ka digtoonaanin dhib weyn bay keenaysaa waddankeena 50 sano gudaheeda Soomaali isirkeena waa la weynayaa sidaas aan rabnaa inaan u sheegno isirkeena inaan la weynin Soomaali baan nahay culture-keena inuusan lumin luuqadeena inuusan lumin caruurteena inaysan dhaxal la'aan ku dhicin intaas baan u sheegaynaa waddankana annaga iskale Soomaali baa iskale waana ku mahadsantihiin media Somali Network Media thank you very much برادة مقعاق محوها محمد حسين محاك قبتها أرنت جزيدي الصومالية وعاول لوغا هدلا يو شركان تورونو بسم الله الرحمن الرحيم دمان أمد الصومالية والسلام يا ميل كستا يجوكتو قدية دبدبا waxaan maanta halkan aynu isugu nimi waxa weeye waa jinsiyadda Soomaaliyeed waxa weeye maanta haddii aynu ka hadalno maanta inagiiba waxaynu maranaa meel xun waynu kala qoqobannahay haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta aynu joogno bal sharcigan aynu raadinayno hadda ku qoran warqadan hadda waxa ku qoran waa English inagu dad Soomaaliyeed baynu nahay ummad Soomaaliyeed baynu nahay English baana maanta la inoogu soo qoray horta sharcigu marka hore dadka qaar baan fahmaynba waxa luqadda ku qoranba oo Englishka ku qoran tahay ka soo qaad waxa dusan 25 sanadood baa waxa dusan waddankeena ay dusan yahay haddaad u fiirsato war iska daa wax kale oo gawaaridii Soomaaliya joogtay baa bileed aan lahayn oo waad ogtihiin oo systemkii la inoogu talagalay ee gawaaridu ay iska baas jirtay maanta gawaarida waxa ugu badan Soomaaliya joogta waxa la yiraahdaa bidixli midig iyo bidixli baa la iska baasaya meel loo socdo meel loo socdaa ma jirto xitaa sharcigii ummadda Soomaaliyeed ee baabuurtu ay lahayd baa maanta lunsan tii dawladnimo lunsan way kala qoqoban tahay waxaan leeyahay jinsiyadda maanta wax la yiraahdo jinsiyada ma jirto jinsiyadda Soomaaliyeed maanta wixii laga bilaabo ama ay noqoto ma aqbali doono mana yeeli doono dibna u yeeli mayno horeyna umaana yeelin ummadda Soomaaliyeed waa midnimaduna waa mid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim magacayga hani maxamed axmed baa la dhahaa waxaan ka mid ahay jaaliyadda degan magaalada Toronto waxna ku bartay marka waxaan aaminsanahay jinsiyadda Soomaaliyeed waraaq lagu qoro maaha waa by blood diyaarna uma nihin waxa waaye cunug yaroo socod baranaya oo kufkufaaya dawladdeena waa kufkufaysaa ma dhaafsisana madaxtooyada hoteelay dadkii degan yihiin xorriyad looma degana marka saa daraaddeed waxaan oran lahaa waxa waaye ha laga lalo sharciga lagu darayo jinsiyadda Soomaaliyeed seel maaho lamana gadi karo mana ogolin haddaan nahay ummaddii magaalada Muqdisho ku dhashay deganna waddanka Canada siiba magaalada Toronto marka walaalayaal waxa waaye mashruuc loo wado Soomaali waa wada mashruuc markaan maqlay wallahi been ma aha maanta marka Soomaali seel iyo mashruuc iyo waxyaabo badan oo dadku dacaayada waa maqlay laakiin factiska iyadoo papers ba hadii la keen
war ma jiro marka faanoole farikama qoday Soomaali taagan yihiin waqtigeeda markii la gaaro ay dadku education bartaan ay nolol samaysan karaan ay doodi karaan ay socon karaan cunug ilka aan lahayn cunto ilma calaajin karo marka dawladda Soomaaliya ilka ma laha maalinta ilka la soo baxdo hal la sugo waqtigeedan leedahay marka waxaan aaminsanahay in laga saaro dastuurka sharcigan jinsiyadda laga lalo haddaan la lalin dadna waan weyne marka Soomaalinimadeeni baa meel noogala dhacay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad ma santahay okay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan la joogaa Warsame Axmed Jirde Warsame oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed degan magaalada Toronto wuxuu ka qabo arintan ayuu wax noogu sheegaya bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore arintan oo ah arinta laga hadlayo Soomaaliya citizenship oo ah wadaniyada Soomaaliya in la qeexo xilligan la taagan yahay waxay la muuqataa arin waqtigeedii aan la taagnayn sababtoo ahna waxay tahay marka hore citizenship wadamada waxaa lagu helaa laba qaabood labada qaabood waxay kala yihiin mid ah u dhalasho iyo mid ah process lagu helo marka labadaba waa laba nidaam oo saxan oo caalamka dhan la wada isticmaalo laakiin wadan walba nidaamka uu qaadanayo waxay ku xiran tahay national interest-ga wadankaas soo marka wadamada hadda sameeyo xataa oo processka lagu qaato waxay u sameeyaan oo kaliya waa national interest-gooda markay arkeen kadib inay u baahan yihiin in processkaas dadka soo maraan oo dadka wadankooda keenaan innaga Soomaali haddaan midkan doon waan qaadan karnaa laakiin su'aasha waxay tahay waqtigan xaadirka ah oo hadda maanta Soomaali joogno wadankan uu ku jiro under occupation oo wadankan uu yahay wadan la maamulo wadamo ajnabi ah ayna maamulaan maanta ma jiraan yani dad wadanka maamulo oo sameyn karo oo ka hadli kara maxaa leedahay inta Soomaali national interest ka hadli karo wadankeena waxaan nahay dad la haysto dad yani wixii doon lagu sameeynayo waxaad arkaysaa madaxweynihii dadka xubnihii baarlamaanka golihii wasaaradda oo Muqdisho jooga wada baqay kulligood waxaan ognahay gudoomiyaasha gobolada maamul waxa magacaabo dad ajnabi ah inagoo marka halkaas taagan maanta inaan dhahno waxaan ka hadli karaynaa sida lagu qaato Soomaali citizenship waxay noqonaysaa processka dhan ma hayno waxay wadankeena diyaar ma aha shacabka ma jirto dawlad Soomaaliyeed oo ka hadli karto oo dhigi karto maxaa inoo dan ama waxaan noqonaa nidaamka ah sida jinsiyadda lagu qaato u dhalashada kaliya mas nidaamka processka caalamka lagu qaato wadan wuxuu sameeyaa based interest soo marka aniga ima muuqato maanta inay jirto dawlad Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed oo xor ah oo ka hadli kara maxaa la yiraahdaa interest-gii oo qaranka Soomaaliyeed sidaa darteed ilaa aan ka noqonayno dawlad cagaheeda dhigato oo xor ah oo dadkii Soomaalida meel gooni inay fariistaan ka hadli karo ummadda Soomaaliyeed maxaa u dan ah waxay la tahay arrinta citizenship-ka waxay noogu timid u dhalasho ilaa hadda waxay tahay waa isirka Soomaali kale in la raaco waxa kale oo idil waa inaan dhahnaa waqtigeedii ma taagnin dib aan u dhigaynaa waa maasantiin Soomaali waxaan ugu baaqayaa dhammaantood meel kasta ay joogaan in arrinkaas aan lagu qaldin inaan la yiraahdo waa international law waxaas cid kugu qasbi kartaa ma laha waxaa jiri lahaa dadka la yiraahdo Falastiiniyiinta oo ah stateless kulligood qaliijka waxay ka wada noqon lahayn citizenship marka ma jirto qaanuun international oo nagu qasbayo soo shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa marka inaan waxaas aan beenta loo sheegin waa arrin ay dad kale ay nagu qaldayaan inaan sugno ilaa la helayo dawlad Soomaaliyeed oo xor ah shacab Soomaaliyeed oo xor ah dad Soomaaliyeed ka hadli kara danta Soomaaliyeed waa maasantiin assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxaa la yiraahdaa Sucaad Maxamuud Caymad arrinka ugu weyn horta hore oo caaw buuqa kiciya waxa weeye dadka sinjiyada Soomaaliya u dhashay inkastoo aan caaw maqlay in horay la siin jiray laakiin lagu siin jiray waxyaalo sharciyeed oo go'aameed oo dawlad ka soo bixi jiray annaga kama tali karno sharci hore u dhacay laakiin caawa 2015 on Toronto joogno wixii naloo keenay oo naloo meeriyay ma nihin dadkii wax loo meerin jiray waxaan nahay dad educated ah rightskooda yaqaana human right-ka yaqaana dhulkooda yaqaana sinjiyadoodana yaqaana annaga oo weli heshiin oo weli dhibaatooyinkii Soomaalidii dawladdii structure-keeda dhisnayn in lagu weydiiyo qurbaha dhexdeeda waliba waxaan la xanaaqsanahay 30 sano aan qurbo wareegayna jinsiyadaada ha lagu lahaado xaq ma aha waa diidnay السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحال يرادا ديقلدني caaw waxaan halkan isugu nimid inaan ka hadalno jinsiyadda siinta waa arrin aan diyaar loo ahayn awooddeedana ma lihin ummadda Soomaaliyeedna in dhibaato la dhex dhigo aysan kari karin ma ahan horaan u sheegay 20,000 oo ciidan ayaa waddankan ku jirta
dabada waxa ka riixahayana waxa weeyaan ajnabi oo lacagaha iyo qarash gelinaya waddankeenna ma awoodi karno inaan jinsiyad aanu bixinno 8 sano ah waana arrin qaldan dib u heshiisiinta ha laga hadlo dib u dhiska ha laga hadlo nabadeynta ha laga hadlo laakiin ma ahan xilligan in laga hadlo 8 sano jinsiyad in la bixiyo fadlan arrinkan ajnabi baa ka dambeeya waanu la soconnaa aynu joojinno abbayaashan waxay u soo shaqeeyeen xorriyad u soo dhaliyeen in mataqaanaa aan ka faa'iidaysanno waxaana lagula dagaalamaya waa beeraheenna iyo baddeenna war siyaasiyiinta soomaaliyeed baddii waa gadeen oo dhulkii waa gadeen oo meel walba waa iibiyeen haddana waxayba iibinhayaan inay yidhahdaan 8 sano baa jinsiyad ku bixinayna mooshin baan ka keennay waana diidnay assalaamu calaykum magacaaga muxuu abaay suuban muxuu cabdulaahi arrintan waa diidanahay waqtigeeda laguma jiro waddanka waxyaabo kale u baahan yahay nabadgelyo military waqtigeeda hala gaaro waa dhici kartaa inay Soomaaliya taajir noqoto sidii Kanada camal oo dad qaabilno laakiin hadda dhulka waa waxa kaliya oo ku faano dhaxashaana tirin walaalayaalow dhulkeena noo daaya diyaar uma nihin Soomaalnimo loo dhashaa lama noqdo Soomaalnimo loo dhashaa السلام عليكم مقعي وصفية نعاو هالكا محل سوقي إمادين عن كوضا تشانو أرمها جنسية ده صومالي باسكالي جنسية الصومالية ما أها محندي لهاي wax oo qof kasta iska siin karo waa dhalasho waa DNA waa ab iyo isir marka anaka jinsiyadda Toronto daana ma ogolaan karno in jinsiyadda Soomaaliyeed shakil geliyo halka waxaan kula nala joogaa Saciid Faarax bal waxaan ka wadiinaynaa wuxuu ka qaba arrintan Saciid go'ay السلام عليكم waxa ayaan dara ah maanta inaan ka hadalno muwaadinimada Soomaaliyeed Soomaaliya 25 sano la soo dhaafay waxay martay dib badan aad u badan dad badan waa ku soo guureen dad badan dana gaar ah waa ka leeyihiin sidaas awgeed waxaan qabaa arrinta maanta ka socota meeshan in dib loo dhigo aan laga wada hadlin ilaa aan ka noqonayno dad strong ah oo dawlad strong ah oo ummadeeda iyo dadkeeda kaashata wadankeeda ilaalsan karta boodaradeeda ilaalsan karta ilaa ay ka noqonayso waxaan qabaa arrintaas in dib loo dhigo assalaamu calaykum okay assalaamu calaykum walaal magacaaga muxuu ahaa okay bal maxaa ka qabtaa arrintan arrintan waa arrin aad iyo aad u foolxun waaye dawladda federaalka waxaan leenahay arrimo badan kale ay Soomaaliya haysataa dhibaatooyin badan oo waddanka ka jiro annaga ana jaawareerinina joojiya dastuur qodobkaanay citizenshipka dastuurka oo looga hadlayo jinsiyadda Soomaali jinsiyaddeeda waa loo dhashtaa lama qaadan karo waddankeena hadeertano dhibaatooyin badan xuduudaheena controlku ma jiraan dawlado badan soo dhaxgalay gudaha Soomaaliya ciidan adag ma qabto oo waddankeeda badbaadi kar right now ciidamo shisheeya nolol jooga waddankan yaana isku furin 100 mabduuc arrintan ma jirto Soomaaliya jinsiyaddeeda ma la qaadan karo madaxweyne Xasan Sheekh naga dhageyso warka madaxweynihii waddanka tahay waxa tahay maxal dhaha amiirul dawlihi waddanka tahay shacabkaadii aan nahay dastuurka qodobkan ha laga saaro right now Soomaali haddaan nahay diyaar looma aha in la furo jinsiyaddeena alaasan ku sheegayna mana la furi karo waana diidnay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وحال يرادا عاشا عبد الله حسن وحان عاوة كسو قيب قلني حفلة هالكان لغو قبطي xildhibaanada iyo wasiirada noo keenay maaragtay barnaamijka ku saabsan jinsiyadda waxa weeye aniga opinionkayga waxaan aaminsanahay waqtigan xaadirka ah inay Soomaaliya diyaar u ahayn inay maaragtay bedesho maaragtay jinsiyadda sababtoo ah dawladdu waa dawlad iska tabar daran waxa weeye boodaradeedu maaragtay safe ma aha ciidan ma lihin dhibaato badan ayaa gudaha ka jirta dad tiro badan oo ajnabi ah oo maaragtay waddanka sharci la'aan ku soo galay ayaa jira marka waxbay ka horeeyaan ilaa aanu dawlad xoog leh oo xuduudaheeda maaragtay ay sukuur yihiin oo maxaa ku yiraahdaa dadka waddanka ku jira oo ajnabiga oo bilaa sharciga laga saaro oo maaragtay ay fiiso ku soo galaan oo maaragtay waqti kale oo nu diyaar u nahay waxa la qabto mooyaane annagu hadda diyaar waxaan aaminsanahay inaan u ahayn raallina kama nihin
dadka degan communitiga reer Toronto waanu maaragtay diidnay sidaa ay nabadgelyo